calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan, isku soo noqo dambe oo xiiso leh. Waxaynu maanta sii wadan doonaa cashiraanteennii taxanaha ahaa ee inoo soo soconayay. Markaasi maalmihii ugu dambeysay waxaynu kusoo jirnay markaynu soo dhammaynay selling brain-kii. Habka ay selling brain-ka mataqaanaa wax uga soo transport garoobaan, waxay u galaan ama wax uga soo baxaan transport across selling brain. Anaga saddex qaybood waaweyn soo kala qaybinay, inkastoo laba ugu muhiimsanaataan odhanay. Qaybtii passive-ka soo qaadanay iyo qaybtan active-ka ka galayno, iyo qaybta noo socota fascicular ama body transport ahayd, iyadoo ugu caansaneyd ama ugu wanaagsaneyd mataqaanaa labada hab ee ugu caansan active-ka iyo passive-ka. Balse waxaynu inagu soo qaadanay mataqaanaa passive baynu soo qaadanay. Passive-ka oo ahaa midaynu laba u kala qaybinaynay, oo mataqaanaa kala ahaa diffusion iyo osmosis. Diffusion-ka laftiisa oo anaga isaga laftiisa laba usii kala qaybinay oo kala ahaa simple diffusion iyo facilitated diffusion. Sidoo kale facilitated-ka oo anaga sii kala qaybinay u kala qaybinay channel mediator facilitated diffusion iyo carrier mediator facilitated diffusion u kala qaybinay. Passive-ku kulli laba ku caan ahaa ama laba qodob ku caan ahaa. Qodob oo ahaa xaalad ka imanaysa ay had mataqaanaa meel ay ku badan tahay, tagiisana meel uu ku yar yahay, sidoo kale uma baahniin wax energy ah. Haddaba kan maanta aynu galaynaa muxuu kaga duwan yahay intaa wuxuu ahaa concept ku saabsanaa cashirkii hore. Balse kan maanta galayna muxuu kaga duwan yahay? Kan maanta galayna horta magaciisa waxaa la yiraahdaa active process ama active transport. Waa xaalad ka imanaysa lagu yiri kan waa transport substance from ka imanaya area low to higher. Waa xaalad ka imanaysa mataqaanaa ama uphill gradient. Tusaale ahaan marka aad maanta jaranjar korayso kale ama aad meel mataqaanaa sare uga baxayso kale, waxaa la oranayaa meel mataqaanaa hoosaad ka tagaysa meel sarena waa tagaysa Soomaa. Wasada kale waa from low to high bay noqonaysaa. Sidoo kale tusaale yar fudud, marka aad meesha aad korayso jaranjartaas oo kale, jaranjartaan tusaale soo qaadanay, marka aad korayso kale maxaad u baahan tahay si aad u korto? Energy baad u baahan tahay aad ku korto Soomaa. Energy la amar kori karaysa meel dheer korsa u dheer ma kori karaysa. Haddaba habkan mataqaanaa active-ku baa lagu yiri waa xaalad kor u kacaysa lagu yiri ama meel ay ku yartay tagaysa meel ku badan tahay tagaysa. Haddaba energy-da aad u baahan tahay maxay noqonaysaa baa lagu yiri? Waxa la isticmaalaa baa lagu yiri waxa la isticmaalaa labadaba la isticmaalaa baa lagu yiri ATPs iyo hydrolysis baa la isticmaalaa baa lagu yiri. Sidoo kale carrier protein baa jira, protein wax qaadaa jira mataqaanaa ay ku soconayaan baa jira. Sidoo kale meesha hadad ATP ku aragto sidoo kale maxaa meesha ka maqnayn ama carrier protein soo wax qaadaya hadad ku aragto meesha maxaa ka maqnayn in meesha energy u baahan tahay, ma energy meeshaas loogu baahan si waxan la socodsiiyo Soomaa. It requires energy no loo sheegay. Sidoo kale waxa uga transport garoobaa lagu yiri ama uga kala socdaa lagu yiri pumps. Waxa la yiraahdaa pumps jira baa lagu yiri waliba special qaybtan markaynu ka hadlayno primary active transport-kan waan dhigan doonaa. Qaybtaas kale ku caana pumps-kan loo yaqaan qaybtan pumps-ka. Haddaba active transport markaynu joogno laba weyn ma kala qaybin doonaa. Labadaas oo mid kastaba xaalad gooni ah tilmaamayo, mid kastaba shaqo gooni ah tilmaamayo, mid kastaba mataqaanaa wax gooni ah ku baran doono. Saca waxaynu focus gareynaynaa primary active transport ayaynu wax ku ogaan doonaa insha Allah. Haddaynu ka socono kulli horta intaanan u gudbin primary active transport-ka marka ugu horeeya mataqaanaa active transport-ka intaan u gudbin intaan ayaa muhiim ah marka kasta ogaato nuudkan. Markaynu ka hadlayno concentration of ions laba bay noqon karaan ECF ama ICF bay noqon karaan. Intracellular fluid bay ku jiri karaan oo gudaha salka, iyo extracellular fluid oo ah dibadda salka. Haddaba ionada maxay kala yihiin? Sodium ion haddaynu soo qaadano horeysa, sodium xagee ku badan tahay? Tirada 142 maxay ku tahay? E-day ku tahay extracellular fluid. This means waa dibadda salka ay ku badan tahay sodium, halka ay potassium ku badan tahay mataqaanaa gudaha salka. Calorie inta ku xigta haddaynu soo qaadano halkay ku badan tahay? Dibadda salka ku badan tahay 103 ku tahay, halka ay kaga yar tahay gudaha salka oo 4 ku tahay. Calcium haddaynu soo qaadano maxay ku yar tahay? Gudaha salka ku yar tahay waxay noqonaysaa 0.001 molecular difference bay noqonaysaa per liter. Halka ay extracellular fluid ay ka tahay calcium mataqaanaa 2.4. Sulfur maxay ka tahay? Gudaha salka 2 bay ka tahay, way ka badan tahay marka loo eego dibadda salka. Hal bay ka tahay. Phosphate markaynu eegno dibadda salka, gudaha salka wuu ka badan yahay dibadda salka markaynu eegno 15 buu ka yahay gudaha salka, dibadda salka ku yahay 4.
negative magnesium to maxay tahay magnesium gudaha salka ay ku badan tahay 8 bay ka tahay halka ay mataqaanaa iyaduna ay ku yar tahay ama ay ku badan tahay ay ku yar tahay mataqaanaa dibadda salka bicarbonate iyada lafteedu markay ku badan tahay waxay ku badan tahay extracellular fluid oo qaybta dibadda halka ay ku yar tahay intracellular fluidka oo fluidka dibadda gudaha ay ku yar tahay bicarbonate inta ayna mataqaanaa maskaxda ku haysanaa muhiimka concentration of ionska ugu badan in isticmaali doono insha Allah waliba ugu caansanaadaan sodium iyo potassium sodium waxay ku badan tahay soorna hadii inuu ku soo ceshano dibadda salka ku badan tahay soorna ku tahay 140 halka ay potassium ku badan tahay gudaha salka ku tahay 140 inta maskaxda inoogu hayo insha Allah cashirkeena imika ayaynu ku mataqaanaa focus gareyn doonaa okay hadaynu ka bilowno qaybta ugu horeysa mataqaanaa active transportka loo yaqaano primary active transport waa transport substance from low to high sababtoo ah active kaaba ah characteristics ama mataqaanaa dabeecadiisa ay ahaayeen xaalad ka imanaysa meel hoose tagiisana meel sare marka xaaladiisa active ka muuqaadanaya isaguna wuxuu noqonayaa xaalad ka imanaysa meel hoose tagiisana meel sare labadaba la isticmaalay guri ATP hydrolysis iyo carrier proteins la isticmaalay ATP hadda dartan meeshaas energy baan ka maqnay sababtoo ah energy baa loo baahan yahay active-ku wuxuu ahaa mid energy ku shaqeynaya carrier proteins ayuu noqon karaa lagu okay markaynu ka hadlayno mataqaanaa primary active transport baa lagu carrier proteins iyo loo yaqaano pumps horaan soo aragnay kulli pumps ay jiri doona ma soo ranay mataqaanaa markaynu joogno qaybtan isoo sheeg primary active transport waxaa jiri doona soo ranay mataqaanaa pumps waxa loo yaqaano hadda pumps waa kuwa transport gareeya proteinada qaado markay sodium soo galayso kale waxa iska soo raaci kara haddaba saddexdan pumps baa ugu caansan mataqaanaa ama badan shaqeeya saddexda pumps ugu caansan maxay noqonayaan sodium potassium ATPase calcium ATPase iyo hydrogen potassium ATPase saddexda bay noqon karaan mataqaanaa saddexda ugu caansan inagoo mid kastaba si mataqaanaa deeply soo dhaxgeli doona ama si faahfaahsan soo dhaxgeli doona balse in maskaxda ku haysato markasta muhiim in active-kani saddexdan pumps midkood uu maro sodium potassium ATPase calcium ATPase iyo hydrogen potassium ATPase hadaynu mataqaanaa kasii soconno tayna ugu horeysa aynu soo qaadano sodium potassium ATPase maxay ka dhigantahay waa primary active transport baa lagu leeyahay primary active transport maqashana maxaad ku ogaanaysaa waa xaalad ka imanaysa from low to high bay noqonaysaa oo waliba energy la isticmaalayo inuu saas kala soconaa markasta muhiim waa pumps ay kala garoobiyaan baa lagu sodium iyo potassium iyagoo ka imanaya meel hoose tagayana meel sare caadi ahaan habkan loo yaqaano sodium potassium ATPase waxaa laga helaa gudaha salka ama dibadda salka laga helaa sababtoo ah sodium waa tan dibadda salka ku badan potassium ku badan gudaha salka sidoo kale waxaa loo yaqaanaa sodium pumps gareysmaysa ama sodium kala soconaysa sidoo kale it has 6 peptides waxaa istaa lagu hab lixeed isku dhigahab oo isku dhaga ayuu haystaa baa lagu markaanaa sodium potassium ATPase kan oo markasta shaqeeya lixda process oo markasta maro mataqaanaa sodium potassium ATPase oo marnaba looga maarsaamaanayno adigu sidoo kale inaad ogaato la doonayo haddaba halkaas sodium potassium ATPase maxaynu kaga tagi doonaa waa mataqaanaa waa pumps-ka sodium iyo potassium iyo ka imanaya meel hoose tagayna meel sare meel ku yar yihiin tagaya meel mataqaanaa badan yihiin tagaya waxaa laga helaa balgu salka iyo salka bariga dibadda baa laga helaa balgu waxaa loo yaqaanaa sodium pumps waxayna haystaan 6 bay haystaan mataqaanaa binding side oo isku dhigitaan haddaba hadaynu ka soconno mataqaanaa 6dan binding side lixda mataqaanaa isku dhiga dhinacyadooda waxa ay yihiin baa lagu kow 6da qodob ugu muhiimsan weeyaan qodobka ugu horeeya hadaynu soo qaadano waa 4 binding afar ba isku dhigaysa afarta maxay tahay waa sodium waa 3 sodium iyo halka kale wuxuu noqonayaa hal ATPase uu noqonayaa bal guri energy noqonaya ATPase maxaynu ku tilmaamnaa wax energy noqonaysa waa enzyme ATP sameynaya lagu sameynaya energy sama extracellular fluid ka markaas ayuu soo galaya mataqaanaa qaybta gudaha ayuu soo galaya mataqaanaa habkan loo yaqaano 3 sodium kan iyo hal ATPase kan haya laba kale iyaguna isku dhig baa jira mataqaanaa laba isku xirmaya jira labadaas isku xirmaysa waxay noqonaysaa mataqaanaa laba potassium noqosida oo ka imanaysa gudaha dibadda salka tagaysana gudaha salka tagaysa dibadda salka ka imanaysa maxay tagaysaa gudaha salka tagaysa halka tii hore gudaha salka mataqaanaa ka imanaysa tagaysa dibadda salka sababtoo ah waa low to high concentration bay noqonaysaa from low to high maskaxda ku haysan qodobka saddexaad maxay noo tilmaamayaa labada qodob kulli isku qabanayaan falaya qodobkan saddexaad wuxuu noo sheegayaa waa transportka ay ku kala transport garoobiyaan lagu sodium iyadoo ka imanaysa gudaha salka tagaysana dibadda salka halka ay potassium ka imanaysa dibadda salka tagaysana
gudaha salka. Waa labada qodob ee u sarreeya oo la isku qabtay weeye. Qodobka saddexaad waa sodium, saddex sodium oo ka imanaysa dibadda salka tegaysana gudaha salka, halka ay potassium cagsigeedu ku tahay ka imanaysa dibadda salka tegaysana gudaha salka. sidoo kale mataqaanaa habkan qodobkeena afraad wuxuu noqonayaa prevent the accumulation of sodium inside the cell. habkan loo yaqaano mataqaanaa sodium pumpis ama kusoo tilmaamay sodium potassium ATPase loo yaqaano kusoo tilmaamay sodium pumpis wuxuu mataqaanaa naga ilaaliyaa lagu ku badnaanshaha in sodium gudaha salka ku badnaato. haddii sodium gudaha salka ku badnaato soo kale water soo kale meesha waxaa imanaya qarax baa imanaya. qarax haddii imaadana meesha waxaa dhacaya burst, waxaa imanaya dhalaal baa imanaya. horta koleetarka meesha dhalaasho oo yimaado meesha waxay noqonaysaa qarax bay noqonaysaa, burst bay noqonaysaa. haddaba waxay naga hortagayaa lagu yiri prevent burstiga abuu ku hortagayaa lagu ku badnaanshaha salka ayuu ka hortagayaa. weliba wuxuu naga sii hortagayaa waxaan keenaya mataqaanaa inuu salku ku bato gudaha salka ayaa horta la iska xidhayaa. markaad factorka xidho wixii wax saameynaya, markaad causka sababtaas ka xidho wixii jirayna mataqaanaa dhibaatadiina complainki ama qofku wuxuu ka cabanaya ama dhibaatadu waxay ka imanaysay way yaraanaysaa. sooma markaa causka in laga yareynayaabo oo sodiumtan laga ilaalinaya inay gudaha salka ku bato. okay mataqaanaa halkan adoo maxay noogu xigo qodobkeena lixaad ama qodobkeena dambe muxuu noqonayaa electrogenic pump. hab electrogen bahaanad iyo socdaa baa lagu yiri mataqaanaa iyadoo sodium potassium ay kala gaadiidooyaan gudaha salka iyo mataqaanaa dibadda salka. waxaa loo yaqaan electrogenic pump. okay haddaynu ka soconno keena mataqaanaa labaad muxuu inoo noqon doonaa mataqaanaa hababkii ahaa primary active transport saddexdii bombis uu kala soconayay ahayd sodium potassium ATPase oo soo qaadanay. sodium potassium ATPase oo nay soo tilmaamnay mataqaanaa waa habka sodium potassium salka soo wada gudbiyaan. waxaynu naqaanaa sodium pumpis oo nay odhanay. sidoo kale mataqaanaa isha ku badan tahay inay sheegnay salka iyo dibadda salka way ku badan tahay. 6 bande saari baa muhiim ah lagu yiri 6 bande oo naga kulay soo aragnay 3 sodium oo dibadda salka gudaha salka tagay iyo 2 potassium oo dibadda salka gudaha salka tagay gudaha salka dibadda salka tagay. haddaba habkan muxuu kaga duwan yahay potassium ATPase muxuu kaga duwan yahay primary active transport. markaad primary active transport maqasho maxaad xasuusanaysaa maskaxdaad ku haysanaysaa inay tahay meesha mataqaanaa xaalad from low to high concentrations sidoo kale loo baahan yahay energy fara badan. sooma caadi ahaan waxaa laga helaa lagu yiri cell membrane-ka laga helaa lagu yiri cell membrane-ka laga helaa lagu yiri muska iyo weliba khaas ahaan laga helaa lagu yiri calcium tan muscle tissue-ga laga helaa waa kan kulligood maqashaan qofkan calcium tan ka yar baa lagu jabay. marka qofka ay mataqaanaa calcium tan ay inuu buuxsanay dhibaatooyin fara badan muu develop gareyn karaa xanuuno fara badan. qofka osteocytes baan sababismin macnaha ma mataqaanaa osteoblasmigiisa miniya cells-ka ayaan mataqaanaa jirin qofka. markaa waxaa ku dhacaya inay mataqaanaa booniskiisa iyo qofkiisa kala jabaan si yaro easy ama si iska fudud. sooma marka habkaas ayuu noqonayaa mataqaanaa inay potassium habkan loo yaqaano isoo sheeg soo potassium loo yaqaan ujeeda calcium ATPase. hadda waa bambiska ay kala miskaroobiyaan baa lagu yiri mataqaanaa calcium tani iyadoo ka imanaysa gudaha salka halkii tegaysa 2 mid ma tegaysa either mid iyo labada mid ma tegaysa gudaha salka iyadoo tegaysa ama mataqaanaa tegaysa baa lagu yiri subcytoplasm organelle sida mitochondria ama sarcoplasm reticulum. mitochondria maxaynu naqaanaa mitochondria waxaa laga helaa ATPase kan ay ka caawinaysaa inay sameyso calcium tan. marka ATPase meesha ay mataqaanaa mitochondria si fudud ayay sameysaa ATPase sidoo kale sarcoplasm reticulum oo naqaani subcytoplasm reticulum kana sidoo kale waxay ka caawinaysaa lipids-ki waxa ay soo saartaa lagu yiri. haddaynu kasii soconno keena u dambeeya oo noqon doona hydrogen potassium ATPase habka loo yaqaano. sidoo kale waa primary active transport. primary active transport markaynu mataqaanaa maqalna san horeba soo sheegnay inaad laba qodob xasuusataa oo muhiim from low to high concentrations iyo sidoo kale inaad xasuusnato weeyaan. loo baahno waxa loo baahan yahay jeedaa wax energy loo baahan yahay energy fara badan baa loo baahan yahay si habka loo socodsiiyo maadaama from low to high concentration uu yahay. caadi ahaan waxaa laga helaa lagu cell membrane-kiisa khaas ahaan bacteria cells-ka kuwan caloosha ku yaala unugyada caloosha cells-ka caloosha ku yaala renal kuna ku yaala mataqaanaa kaliya ku yaala tubulariskan ku yaala mataqaanaa uterus noqon karaa waxaasoo yareeta ku noqon karaa macnaha halkaas laga helaa laga jeedaa tubularaas laga helaa fallopian tube-ka
epithelial waxaa laga helaa baa lagu yiri qaybahan epithelialka gudaha asalka ayaa laga helaa iyo wixii lamid ah intaas baa laga helaa baa lagu yiri hydrogen potassium ATPase waa shaqo aad iyo aad u muhiim ah qabataa maadaama gudihiisa asalka laga helay. Haddaba habkan waxaad ogaataa baa lagu yiri primary active transportkan waxayna siiyaa baa lagu yiri source-ka aynu ka helnay energy secondary active transport waa habka sidan habkii loo helay mataqaanaa weeyaan primary active transportkan secondary active transport. Haddii aynu helnay primary active transport waxaynu sulfate ku heli karnaa secondary active transport taasoo muhiim ah inay dhacdo secondary active transport in la helo primary active transport si loo soo profile gareeyo ama inoo siin wax source ama energy iyo loo baahdo. Marka labada mataqaanaa primary labada active isku xidhan yihiin secondary iyo primary markay primary sameysmo secondary na way sameysmaysaa baa lagu yiri. Okay doona ka socono that's all about halkaas maanta insha Allah shirkeeni noogu eegyahay inoogu dhamaan insha Allah waxaan rajeynayaa kulley inaad mataqaanaa ka faa'iideysan doontiin kulley toddobaadkan ayuu dhacday mataqaanaa aniga gaab dhexdeeda ka idin ka raali gelinayaa insha Allah inoo toddobaadada dambe khayr baynu isku ognahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.